islaantan weyn gurigan ayay ka shaqaynaysaa. dabcan qoys Soomaaliya ayaa guriga degan. haweeneydanna waxa ay samaynaysaa oo ay qabanaysaa shaqadii loo igmaday ee ahayd nadaafadda iyo karinta cuntada. ma aha iyadu Soomaali oo waa ajnabi, laakiin xanuun ayaa ku dhegan. biyo ayay soo qaadatay garaafada. muuqaalkan kaamirada ee duubtay oo hadda ay dadkan ii soo direen runtii yaabkuu leeyahay waxay tahay ma ahan tuug haweeneyda wax ma xadays, laakiin wax xatooyada ka daranaysa mene. biyihii aragtay soo shubtay, dabcan bariisay ku tuur rabtaa ama wax kale biyay karkarsanay. dhabarkay markay haysataa saa ujeeda sintaa laga hayaa, waxbaa ku dhegan. garaafihii soo qaadatay, meeshii biyaha ay ka shubaysa agteeda imaaday. hoostaa marka waxaa yaala sida dadka ay sheegeen qalabaa yaala oo maaragtay ama meel ay ku fariisan karto. maradii u fiidatay wallaahi billahi waa isku imaan way fariisatay dhag. ilmaha caanahooday habaysa rabtaa marka intaas ma usii dhaafayna mugtahay. laakiin ficilka ay samayn doonto qofkan dumar ee aan dareemayo in xanuun ay qabtay ama ay hayso uu muxuu ahaa waxa la yiraahdo infection oo ay ceshan weysay kaadida, ayay nafta la gaartay inay halkaasi fariisato oo ay garaafihii ay reerka bariiska ugu kari rabtay biyaha ku shubaysay ay xaajadii ku dhamaysato. way soo qaadatay iyadoo gaduudan weliba ay say ahaan garaafihii ay soo qaadatay ay ku kaadisay ee meeshii alaabta ay ku dhaqaysay haweeneydan subxaanallah ugu shubtay. kadibna gaaskii u siishay direerka tadii ayay